waxyaabaha ugu yaabka badnaa wuxuu ahaa kiis ka dhacay degmooyinka gobolka Banaadir degmo kamid ah gabar yar oo 12 jir ah la kufsaday la dhibaateeyay ninkii kufsaday asagu uu kamid yahay dadka wax raadinayo laakiin intuu meel banaan geeyay gabadhii kufsaday dhibaato u geystay haddana isku dayay inuu god inta u qodo ku aaso gabadhaasna inuu dilay oo ka soo qaaday laakiin dad xoolo dhaqataa gabadha ay arkaan haweenka gobolka Banaadir anigu aan gudoomiyaha u ahay waxay ka dhisan yihiin 20 degmo ee gobolka Banaadir aan magaalada Muqdisho ku dhashay ilaa marka arkayna biyaha waa qaadayeen moolalka waa ku dhacaayeen marka garaadsanay aniga dawladii kacaanka ee xoog badnayd ayay warahan jireen biyo dadkuna ay qaadayeen adduunkana waa ka dhacaa falaad ama daadad way ka dhacaan ma aha wax magaalada Muqdisho ku gaara waa arkaysa xal habeen barkii waxaan xasuusanayaa degmo kamid ah gobolka Banaadir ayaan habeen madow ka shaqeynayna hooyo waayeela oo gablana oo ilmo lahayn oo qarqarayso ayaan wax ugu galna biyaha dhexdooda weydiidina ka soo bixino waana ku dhimatay markii dambe gurigii roob uu yimid ay u dhimatay islaantii بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر دوادة برنامج جارة أما ورئيس جارة وأن لا يلنا إنه قدوميها أورك هبين كقبل كبنادر مربو جواهر برقب مركل وكسور بينا محيطها حولها وحسارين حفيز كأورك قدوميها أتكتها هبين كقبل كبنادر وما تصنت هاي والسؤال هذا مهم وأنا كفر حسن عيرنتي ورئيس جان وأن كوب حينينه barta sahayda qallalan ee maamulka gobolka Banaadir loogu talagalay taakulaynta dhiirigelinta iyo garab istaaga ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waa halka lagu diyaariyo oo ciidanka laga abaabulo waxayna qayb ka tahay shaqooyinka haweenka gobolka ay qabtaan haweenka gobolka Banaadir anigu aan gudoomiyaha u ahay waxay ka dhisan yihiin 20 degmo ee gobolka Banaadir haweenku waa lafdhabarta bulshada 20 degmo ama maamulka gobolka Banaadir maayirka dalka ugu sareeyo ee gudoomiyaha gobolka ugu sareeyo ilaa iyo 10 guri inta ka dhaxaysaba waxay ka qabtaan shaqooyin aad u kala duwan shaqooyinka annaga aan maarta haween ahaan aan qabanana lama dhihi karo waa shaqo hebel waayo hooyada Soomaaliyeed waxay qayb ka tahay soo saaraha bulsho caafimaad qabta bad qabta horumar iyo dhan walbaba ka dhisan waxay ka timaadaa hooyadu waa macallin waa barbaariye anagu marka shaqooyinka aan qabanno waxa kamid ah isdhexgalka bulshada abaabulka bulshada dhiirigelinta bulshada tababarada iyo maaragtay wacyigelinta doorka haweenka Soomaaliyeed iyo ku soo biiritaanka siyaasadda iyo miiska talada 30% doorashooyinka marka la aadayo in aan diyaarino gabdho diyaarsan runtiina aan waxaan kamid nahay hogaamiyaasha haweenka Soomaaliyeed annagoo wada shaqeyn aan la leenahay wasaaraddeena haweenka dhammaan wasiirada iyo wasaaradaha dawlad goboleedyada waxaa jirta tacadiyado joogto ah oo soo gaara haweenka ma diiwaan gelisan tacadiyadahaas maxay yihiin tacadiyadaha soo gaara haweenka tacadiyada haweenka soo gaara way farabadan yihiin haday noqoto tacadiyada kufsiga tacadiyada dhanka siyaasadda tacdiyada mararka qaarkood kaaga imaanayo qoyskaba kaaga imaanayo in gabadhii awood sheegasho inay noqoto oo gabadha laftirkeeda ama markay shaqada doonato waxa uga yimaado tacdiyo oo ah inay gabdhihii ay markay shaqada doonato ay dhibaato ka soo gaarayso la leeyahay wax uun iigu bedel waxa kale jiro tacdiyada gudniinka fircooniga oo ayaduna ay tahay xadgudub in qofka jirka bini'aadanka uu maaragtay dhibaato loo geysto marka way badan yihiin wadan colaadi ka dhacdana dhibaatooyin badan ka dhaca laakiin anagu gabdhahaas waan la kulanaa waan diiwaan gelinaa ha ugu badnaadaan ama kufsiga ama gudniinka fircooniga sidee u caawisaan haweenka la kulma tacadiyadaha waxaan u caawinaa ururka haweenka waxay ka dhisan yihiin oraan kugu sheegay degmada waxay ka dhisan yihiin laamaha waxay ka dhisan yihiin waaxaha 10 guriba gabar ayaa madax ka ama horjooga ka ah markii degmo ama xaafad ay wax ka dhacaan gabdhaha ururka haweenka waxay soo diraan taleefano markay soo diraan waxaanu leenahay dad team wacyigelina
isla markiiba waxa jiro hay'ado kale oo qaabishan gabadhaas markuu dhibku ku dhaco waxa la geynayaa degmada laga kaxinaya waxa la geynayaa CID markii laga wado waxaan u diraynaa baaritaan lacala waa mid kufsiga markaan fiirino isla markiiba baaritaankaas markii la sameeyo waxa jirta hay'ad SWDC la yiraahdo oo wada shaqeyno hay'adaas waxay diiwaan gelinaysaa waxay kontroleysaa kahortagyo dawooyin ayaa la siinayaa halkaas ayaan maaragtay waxaan u qabanaynaa lawyer ama abukaate kiiskaas ugu dambeynna ama waa lagu guuleystaa oo waa la xiraa ama bacdi madoobeed ayaa naga awood badiso oo reer hebel anagoo gabadheen waa la kufsaday intiiba wiilka dhibka familka wax geystaba aan la gaarinba gabadha qoyskeeda ayaa mararka qaarkood diidayo gabadhiyo dhiig baxayso inay dhaqaale ku bedeshaan haweenka banaanka u soo baxa ee sheega tacadiyadahooda waxaa ka badan kuwo qarsada tacadiyadaha tacadiyadaha kuwa loo geysta ee qarsada qaab noocee u caawisaa waxaan u caawinaa way ku imaanaysaa marka ugu horeyso marka gabadha tacadiga loo geysanayo waxaa ka horeeya marka hore in la tarar gelinayo la cabsi gelin gabadhaas ama awood sheegasho inay wax ku dhacaan marka gabadha markay ku timaado laftirkeeda ma fadhido isbeddelaa ku dhacayo adigoo isku dayaya inaad caawiso ayadoo aad u baqanayso haddana isla markii waxay ka laabanaysaa arintiiba in la galo oo ama la soo bandhigo marka qaarkoodna ma ogolaanayaan ayadii dacwoonaysay ayaa haddana dib uga baxaysa dacwadii marka way adkaanaysaa in kiisaska qaarkood lagu guuleysto ama gabdhahaba maaragtay marka waxaan sameynaa wacyigelin inay gabdhuhu ku dhiiradaan inay hadli karaan oo ay sheegi karaan inay dhibana yihiin qofka dumarka ee tacadiga ku dhaca sidee ku heli karaa cadaalad wuxuu ku heli karaa marka hore nidaam adduunku wuxuu leeyahay sharci waa law and order haddii uusan jirin sareeyo sharciga ka sareeya dadka waxba way adkaanay in gabadha Soomaaliyeed ama qofka muwaadinka Soomaaliyeed uu helo cadaalad marka gabadhaas waxay cadaalad ku heli kartaa in haddii ay gabadhu ayadu marka horeba inay aaminto inay tahay qof muwaadina xaq u leh inay isdifaaci karto looyarkeeda difaaci karo marka qaarkood waxaysan awoodaynin xataa inay waqtiga maxkamadaha aynan awoodin xataa inay soo raacdo ama gaari soo qaado ama bajaajka aanay awoodin marka waa in la helo sharci ama xeer ciqaabeed dambiilaha geysta tacadiyada gabdhaha ama haweenka ka dhanka lagu xukumo ilaa laga helo kaasna iyadoo shuruucdaas ay wasaaradda haweenka hadda wasiir Khadiija ay baarlamaanka aan ka rajaynayn in la hordhigo culimadana ka soo dhamaaday ilaa la helo haweenka iyo caruurtaba waxay dhibano u yihiin ama afduub u yihiin dhaqanka iyo maaragtay xadgudubyada ku sameeynayo oo aysan jirin cid uga garaabayso way adag tahay ilaa cadaalad laga helo marka cadaaladan ku hoos jirnaa wali intii aad ahayd gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir tacadiyadii ugu qaraareed aad la kulanto gabar loo geysto mana la wadaagi kartaa waxay dhowr kiis oo aad u xanuun badan waxyaabaha ugu yaabka badnaa wuxuu ahaa kiis ka dhacay degmooyinka gobolka Banaadir degmo kamid ah gabar yar oo 12 jir ah la kufsaday la dhibaateeyay ninkii kufsaday asagu uu kamid yahay dadka wax raadinayo laakiin intuu meel banaan geeyay gabadhii kufsaday dhibaato u geystay haddana isku dayay inuu god inta u qodo ku aaso gabadhaasna inuu dilay uu ka soo qaaday laakiin dad xoolo dhaqataa gabadha ay arkaan dib loo soo noqday wali ninkii inaanu cadaalad aysan helin laakiin waxaan ku guuleysanay gabadhaas hooyadeedu qurbaha ku maqnayd inaan dacwo loo furo hooyadeed u dacwooto gabadhaasna ay hooyadeed ay maaragtay u tagtay marka kiiskaas aad u xanuun badnaa waxaa la mid ahaa kiis kale gabar kale oo yar oo ayadana la kufsaday la soo qabtay dadkii ay tilmaantay cadaaladii la hor keenay maxkamadda horteedana lagu sii daayay iyadoo awood ama qabiil loo adeegsanayo gabadhaas waxa bararay mindhicirkii haddana si gabadhaas dhibka ku dhacay familka ay walaasheeda la joogto u qariso ayay waxay geysay islaamaha wax guda gabadhii waa la tolay kaadidii ku xirantay isbitaalka Digfirangeyna xildhibaanadii wasiiradii dhammaan haweenkii Soomaaliyeed ee waxgalka ayaan ugu yeernay gabadhii gurigeygan ku hayay gurigeyga la iigu keenay waxaan ku faraxsanahay inay inta badan haweenku ay aaminsan yihiin inaan kamid ahay dadka ugu firfircoon ama u dooda xuquuqda haweenka oo gurigeyga ay imaanayaan dhibanayaasha
hadday noqoto wiil hadday noqoto gabar tacadiyo loo geysta intaba way jiraan marka labadaas kiis oo xanuunkooda midna ay tahay markaan gurigii tagnay shaneemo camal in loo daawanayo oo dadku soo baxayaan oo la leeyahay heblo waa la kufsaday heblo waa tan marka gabadhi marka muuqaal ahaan iyo maskax ahaanba dhibaato u gaaray indhaheeda banaanka yimaadeen nolol kuma noolaan karto waa heblaayadii la kufsaday kufsadihiina magaaladu joogaa odaweynu 70 jir ku dhawaadna oo ahaa marka dhacdooyinka ka dhaca meeshan haday noqoto 4 jir haday noqoto 2 jir waan aragnaa maalin walba kiisas badan laakiin waxa loo moodayaa inaad adigu dangaara ka wadato waxaa jira walaac ku saabsan in dalka weli ka jiro gudniinka fircooniga maadaama adigu aad tahay gudoomiyaha haweenka maxaad ka qabateen arintaas waxaan aaminsanahay waxaan ahay hooyo dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircooniga waxaan ka siinaa gabdhaha wacyigelin gabadha marka ay gabarnimadeeda ay tahay oo la gudo waxay la kulantaa xanuun waxa ku dhaca argagax qaarkood dhigbaxay u dhintaan markay u dhintaan gabadha markay ka badbaado xilliga guurka ama xilliga caadada waxay la kulantaa dhibaato aad u badan oo gabdhuhu caadada way ku xirmaysaa markii la guursado dhibaato kale la kulmaysaa marka ay dhalaysona waxay la kulmaan dhibaato marka qaarkood waxa gabdhaha ka soo gaara faquuq oo ah gabadhii inuu ninka furo marka isku furanto ilmihiina ay ka dhintaan waxaad arkaysaa qaarkood ilmihii inay waayaan ilmihii oo ka dhintay ayadoo la guday ayadoo oo dhibaatada gudniinku u geystay ay ka dhaxashay ilmihii oo dhintay ninkii oo furay iyo ayadoo bulshada fuquuqayso oo ah tii isku furantay mararka qaarkood guryahooda kaadidoo soo baxsanayso ayay waxay isku dayaysaa dadkay la noolayd haddana inay la noolaan weydo oo ay qarsanayso xanuunkii marka xaafadahan gabdhaha u dirnaa aad ugu faraxsanahay isbitaalka Daynile iyo isbitaalka Kaysaney wuxuu naga caawiyaa gabdhaha isku furanka ah aad iyo aad loo maaragtay tacaala goboladana waa laga keenaa marka shaqooyin aad u badan oo xanuuno badan ayaan mararka qaarkood la kulanay والله أنا واحد بدنا كقبلنا شروع داس إن لباس جريو ده لا بدنا نصميني وفهم كرتا إن الشرعية أما إن قضب بدا إن برلمان كالهرجي الدفاع حقوق ده وينك مرة لا مركل لما قلص سدد بن أنت سوي السيرة يا حلك اللوجة قاعدة دبعت بدنا للسومراي وحن سمينا المركة إنبتيشن إن سمينه دقموينك عن حقوقنا كسمينه كامبين إن نصمينه وعن بلشة فهم سينه إن تعدي ده وينك كلية أنا أمين سنة يبقى أنا قدامنا هاي هوينك سومالي جاران هوينك قبل كبنادر وحكلية وحول بلوجو جنكرو اللي بعتذا تعدية ذا جرديلك حد جذبية ذا قبلها لو سمينا إن شرعي الله لأن أمين سنة مركا وحن سمينا وعي قلين وأن أسمينا دتك الدجموينك جوجو والرضا هوينك لا يسكو كيانو لا فرديستو ولي بقينا قبلوا قاركود كار لكران دبعتوينك أيجا شخصين كسوق جاري مركا أنا وحنا أمين سنة هاي in la helo sharciyadaas baarlamaanka la geeyo la baasgareeyo maadaama aabaha Soomaaliyeed uu dareemi karo ama walaalka kula dhashay dhibaatada gabdhaha soo gaarayso sanad kasta magaalada Muqdisho waxay dhibane u tahay daadadka ka dhashay roobabka ma jira wax dadaalo ah ururkiina ka geystay culayska la saaro maamulka inuu wax ka qabto arintaas annaga habeenii maalin mar walba waxaan nahay wacyi-geliyaasha bulshada waxaan qaanaa gobolka Banaadir goobaha dhibaatada gaarka waliba degmooyinka gobolka Banaadir oo markay daadad ku yimaadaan sida degmada Warta Nabadda degmada Boondheere degmada Hodan degmada Wadajir waa kala duwan degmooyinka iyo goobo kamid ah degmooyinka qaarkood oo runtii ay daadadku wara waaweyn ay ku yaalaan waxaan ku faraxsanahay maamulka inuu shaqooyin badan inta aan la gaarin xilli roobaadkii uu ka waday waxaana naga wada go'aan qof walba bulshada laakiin marka aad aragtid waxa jira deegaano dadka ku nool sida ceelo muudo kala ama ceel macallin ama warta marka waraha waa bari bahalkii Hodan iyo Warta Nabadda iyo in dadka qaarkood marka la damco in laga kiciyo ay leeyihiin dhulkii la rabaa in laga boobo waa meel biyo degeen ah waa meel ay ku noolaan kareen waxaan xasuusanayaa xilliyada qaarkood mid mar kamid ah baabuurtii in loo amray dadka meeshan in laga raro meel kale la geeyo ma ogolaanayaan bartaasay rabaan inay ku jiraan roobkii qaadayo waxaan xasuusanayaa degmo kamid ah gobolka Banaadir ayaan habeen madow ka shaqeynayna hooyo waayeela oo gablan oo ilmo lahayn oo qarqarayso ayaan wax ugu galnay biyaha dhexdooda weydiidina ka soo bixino
waana ku dhimatay marka dambe gurigii roob uu yimid ay u dhimatay islaantii way qarqaraysaa ma qaadi kartid sulda ayaga qaaday anagu maamulkii maadaama anagu maamulkii gobolka aan nahay oo dadkan canshuurta laga soo qaado la rabo in lagu celiyo wadadii loogu dhiso ayaga lagu caawiyo marka aad u tagtid isku daydid marka waxaan sameynaa waa la soo kaxaynayaa degmooyinka waa ka mid ah la dejiyaa aan magaalada Muqdisho aan ku dhashay ilaa marka arkayna biyaha waa qaadayeen moolalka waa ku dhacayeen marka garaadsanay aniga dawladii kacaanka ee xoog badnayd ayay warahan jireen biyo dadkuna ay qaadayeen adduunkana waa ka dhacaa falaad ama daadad way ka dhacaan ma aha wax magaalada Muqdisho ku gaara waa arkaysa xal habeen barkii xilligii laga shaqeynayay roobku wuu imaanaya waa wax dabiici marka masiibada ama aafadu waa dhowr nooc mid waa mid ilaahay keena midna waa mid bulshada ka dhex imaanayso dhiiqada iyo wasaqda guri 3 milyan lagu dhisay oo hortiisa dhiiqa ay tahay ama hortiisa ay bohla tahay ma aha maamulka midka laga rabo waa laga wacyigeliyaa waxaan kaloon arkayay oo runtii waxyaabaha laga xumaana markay tahay waxay soo bixinayaan wax alla wax qashin oo guryaha ay ku haystaan markuu roobka da'ay dad jaanis ka dhigana way soo raacsiinayaan xataa waxa laga yaabaa inay ku jiraan cirbada inay ku jiraan waxyaabo oo aad u xun oo aan wanaagsanayn ayaa biyo la soo raacinaya marka bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir ayada wax iska dhigi karto Soomaalida waxay tiraa Roomo hal maalin lagu ma dhisin magaaladan oo boholo ah magaaladan oo mugdiya magaaladan oo cabsiya ayaan ku nooleyn ani maantay u malayn maayo inaan Washington DC ama London aan ku doorsanayo ama Amsterdam adiguba aad ka timid way igala qiimo badan tahay wayna ka horeysaa maantay wayna ka amni badan tahay waayo marka adduunka fiirisid dhanka amniga iyo dhanka nolosha magaaladu waa kobcaysaa haday noqoto dhaqaalaha haday noqoto muuqaalka laakiin bulshada ayada la rabaa inay isbedesho ma la bedeli karo anu dhowr 10 sano aan hadlayaa oo umad la hadlayaa oo xilligan arkay sidaan wili shaqada aan ku jiraa mana ogolaan karo damiirkaygana ima siinayo waxyaabaha dadka qaarkood ay ku noolaanayaan marka dadkan waxa la rabaa maskaxiyan iyo aqliyan iyo dhan walba inaan ka korno inaan anagu magaalo sideeda dadka waxa ka maqan waxa la dhahaa wadaniyada nationalism dadku hadaanay waxa wadaniyada oo dadku ay ayagu wada leeyihiin ama dadka ka dhaxeeyo in fahamsanayn way adkaanay inaan ka gudubno marka laga soo tago inaad shirar aad qabataan oo xaaladaha jira uga hadlaysaan ma jiraan waxyaabo la taaban karo hal iyo laba la dhigi karo aad qabateen ficnaan lahayd in aad tagtaan ama soo booqataan xarunta farsamada ama tababarada haweenka gobolka Banaadir waxay ku bartaan gabdhaha qurxinta cilaansaarka waxbarashada waxa kamid waxa arkaysaa hooyo ilmihii wadata oo wax baranayso marka annagu waxaan ku dadaalaynaa inaan nolosha qof bini aadan ah wax ka bedelno waxaan ku faraxsanahay haday noqoto shaqaalaysiin iyo haday noqoto waxbaridba in aan aad ugu dadaalno dhankaas oo gabdhaha inay gabadhu timaado miiska talada waa go'aankeena kaliya waxaan uga bixi karnaa inay tahay education ama waxbarashada marka waxa fiicnaan lahayd in xarunta tagtaan soo booqataan aragtaan waxyaabaha haweenka gobolka Banaadir qabanaya waa ku faraxsanahay waxaan kamid ahay hogaamiyaasha haweenka Soomaaliyeed wasiirka wasaaradda ugu horeyso aniguna aan ku matalayo magaaladan caasimadda ee mugga weyna 5 milyan ay ku nooshaa haweenkooda inay yimaadaan miiska talada in aan ka mid noqono koow dhaqanka wuxuu nagu noqonayaa caqabad oo waxay tahay wiilka aniga ila dhashay inaanan maaragtay asagu uu helayo fursadaha shaqo markay noqoto dawlad 4.5 ku dhisan qabiil ku dhisan awood siinaysa wiilasha laakiin gabdhihii aanay waxba ka helaynin in anigu reerka aan u dhaxay ama aan reer inaan ka dhashay oo qabiilka aniga aan ka dhashay inaan wax ku weynaayo ilmahayga reerka yihiin inaana waxba ku helaynin marka caqabadaha ugu badan oo gabdhaha 30% inaan ku dadaalno ay tahay ilaahay wuxuu siiyay suuratu nisaa waxaan ahay haween ilaahay wuu na karaameeyay ma jirto aayad ama suurad rag loo soo dejiyay balse anagu aaminsan inaan anigu ahay kuntunley shariicada islaamkana ay ogasho wax la ogolaado oo bini aadan ku dhaqmo kan ugu xun waa 4.5 oo dadka dalkeena ay maanta wada qaateen laakiin raggu aanay fahmaynin markaan 30% ka hadalno ay nala yaabaan anaga ileen 30% gaala u soo dhiibtay 30% ka laan asaga waxyaabaha oo laga xishoodo ayaga ku dhaqmo 4.5 in la fuuqo dadna la dhashay nala siman oo ay nala mida waa midda aan rabna marka 30% inaan kaga guurno cadaalad darrada 4.5 iyo caqabada dhaqanka reerkan u dhaxna iyo kuwan ku dhalanay dhexdooda oo aan ku dulmanahay waa midda nagu qasbayso waxaana kamid ahay gabdhaha u dooda u ololeeya 30 sano la soo dhaafana kamid aha inay cadaalad helaan gabdhaha habeenii maalin u taagan waxaa jira haween badan oo ku daruufaysan caasimadda qaarkood xitaa wadooyinka ay ku umulaan
ma ururkiina ma ka warqaba haweenkaas saas u dhiban maxaase u qabateen والله waxaan ku faraxsanahay gobolka Banaadir inaanu ahayn tuulo ama maaragtay meel gobol oo baadiya degmo kasta waxa ku yaalo 3 2 ama 4 MCH ku yaalo hooyadii dhalaanka adeeg loogu qabto wacyi gelin haday tahay nutrition ama nafaqeynta iyo badqabka talaalka in guryahooda loo geeyo marka ma aha magaaladan waa magaalada caasimadda ahayd waa magaalo xadaari ah waa magaalo dadkeedu ay fahamsiin ayagu inta soo baxaan ilmahooda talaalay marka fikirka magaalada caasimadda laga qabo ma aha taas anigu waxaan qabaa inay gabdhaha gobolka Banaadir qof wada isaga dhalay aanu jirin barakacayaasha dhexdooda xataa service ay ka heli karaan ugu dambeyn waa in miisaaniyadda ururkiina sidee u maareysaan xageed ku bixisaan haweenka Soomaaliyeed waxay leeyihiin wasaaradda ugu sareysa haweenka wasaaraddeena waxay ka tirsantahay wasaaradaha way ka miisaaniyad yar tahay oo markastaba hooyada Soomaaliyeed waxa moodaa dhanka fahanka haweenka inaanay hadii ay Soomaalida in badan ay fahmi lahaayeen awoodda haweenka Soomaaliyeed oo inta badan anagu aan ku soo koobno haweenkeenu waa garab waa gargaar qarsoon maangaab ku garanayna oo ah ma jirto miisaaniyad dhaqaale ee haween Soomaaliyeed dawladdu intay budget dejiso ama heer dawlad goboleed ama heer federaal ee haweenka loogu talagalay marka laga reebo wasaaradda haweenka iyo wasaaradaha dawlad goboleedyada anaga haweenka ka gobolka Banaadir gabdhaha ugu badan ee ka shaqeeya maamulka gobolka Banaadir haweenka ugu badan wax miisaaniyada oo qorshe goboleed ah ma jiraan balse waxaan rajaynaynaa waxa jira gunada dadku ay qaataan gabdhuhu ay qaataan dhamaan waxaan ku faraxsanahay 20 xafiis ee haweenka iyo ururada hoos yimaado inayna gabdhaha ururada waxba qaadanayn laakiin gabadha hogaaminaysa waqtiga bixinayso gurna inay bixiyo gobolka Banaadir oo gobolada marka fiiriso dawlad goboleedyada ay qaar kood banaacuriyaan ayagu aanayba qaadan ba anagu aan qaadano aad ugu faraxsan